halkan waxaa sii gali doonaa meeshan sida ku qoran galitaanka ku qoran waxaa u soo gudubnay oo imaanay xafiiska السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي دخالي جعلها وايد سلامي ميل الباء الدنيا دافية كجوكتان وأمرك لي ولاش النصر ابتدون ويدين وضم مقالك اللي عصب نجورين جنا كدك عصبته وحكولينا سولو ما أنت جد نحدي سايدين كسو سلام وين فهمتين سأركتان هذا وحتى جنا هاي إزجوز كتلاح جارهان طبق حياة مول هوستيسا أم حياة ماركت سوق حياة أنا وحاول قيبتها ويقدم باسم فهمتين حياة مولا يقدم بيسي جودها وقالنا سأركتان بو هدرتان محلي جروسي صدق أتاجنا السوق حياة دمشق سوق قرن كرنا وحاكو قرن حياة مولا جوجنا إن حياة مول محيك قد وانتهي حياة إن أتخانين أو كتها لإزجوز صوبي حياة ماركت بلا جودها وقالنا محيك قد وانت حدا سؤال كنا إن شاء الله let's go أصحابتي قاليجا سأوجي دام بهذا وحاسوق لي جودها حياة مول مركز سوق شد أنت لن أوجد بين حياة ماركت وحجيسها كخوانا لنا عام بديح وحاجها شركة LG هذا تخانان قلب إلكترونيكي إيوان سيدا نقصالها إيو حيواس سيدا كل أنتو حقتها لشركة سومتل لنا عام بديك وحاجة قبنا شركة سامسونج موبايل هذا شركة واوين وعانه أيا محل يجري كل حياله مول كان كم دي هاي farmashiga aawad khaanaan shifa pharmacy ayaa kamid ah waxyaabaha ku dhaxyaalo sidoo kale dahabshiil ayaa tan waxa sii gali doonaa meeshan sida ku qoran galitaanka ku qoran dhinacaan galitaanka aadina kadib waa arki doonaa insha Allah waxa nooga horeeyo kala xayaad mool waxa ku dhaxyaala hadda indheega qabteen Premier Bank bangiga aawad khaanaan ee Premier Bank ayaa meesha qaybtan ku yaalo waxaa idinka idin lamid ahay dadka hore ah soo booqana ka hadlaa sababtoo ah markii ugu horeysay imaada xayaad mool tan iyo markii la furay maadaama wadanka ka maqnaa sidoo kale meeshan waxa ku taalo shirkadda Hormuud hada ka helaysid Shifa Pharmacy oo ku dhaxyaalo LG ka helaysid Premier Bank ka helaysid Dahabshiil ka helaysid Somtel ka helaysid maxaa dhima wax ma dhinno hada waxa galeynaa suuqa iyo qaybta laga adeegto iyo waxyaabaha yaalo kii hore muxuu kaga duwan yahay asal soo aragnay insha Allah daawadayaal sida aad u jeedaanba markuu ugu horeyso markaa soo galay suuqa Xayaat Market qaybtiisa Taleex geeskan waxa iga qabtay briiskii aad u jeedaan ay nooc asagoo sidoo kale dhinacaan waxa iga qabanaya baastooyinkii laakiin oga helay ma sha Allah cabitaanadan qaabkii u diyaarsan yihiin ama miiska lagu diyaariyay waxa dareemayaa inuu yahay wax casri oo qurux badan oo indhaha soo jiidanayo sidoo kale cabitaano kala yaalo hora u sii socon doona insha Allah waa sidoo kale inta cabitaano kala yaalo iyagana qiimahooda ma sha Allah aad u jaban sidoo kale inta caano iyo waxyaabahaas iyo farmaajo waxyaabahaas yaalo sidoo kale qaybtan qaybta khudaarta waaye qaybta khudaarta iyadana cabaar ku soo wareegi doona insha Allah inta kale sa aragtaan ma sha Allah khudaarta ay nooc qumbihii أنا بحاول قيبت خضار soo galo waxa ku dheeraan aan fahamteen meelaha kale waa ku daadaawa ka dhaqsada laakiin qudaartu waa ku daaha ay bahalka aad ugu xiiso wallahi canooni ma sha Allah cabitaankiisa zaid u jeclahay waa ku faraxsana caawina joogo suuqa Xayaat Market qaybtiisa Taleex isgooska Taleex Xayaat Mall ina caaw ka adeegtana aad ay farxad gelinaysaa runtii sababtoo ah inta maqnaaya la furay soo xiisa igu hayn fahamteen ina imaado qudaartii kala duwan li madaliin
waxaa khajaarkii yaanyadii kabashkii badijaankii brokoligii waaw inaba caadi ma amazing ma sha Allah qaab qurux badan oo cajiib ah loo diyaariyay sidoo kale bardhadii basashii tufaaxii iyo liim oranjidii waxyaabahaas oo dhan waaw qaybtan fruitska ku jiro fridge-ka ku diyaarsan strawberry-ga canabkii iyo kiwigii waxyaabahaas qarihii cabitaanada kala duwanaa ilaa dhinacaas ma sha Allah suuq aad u weyn yahay inaba caadi ma aha aad u qurux badan yahay waaw inta afkaadha taalo amazing ma sha Allah afkaadha taalo cabitaana ayaa la kala duwan qaybtan waxa qaybta oo hilbaha iyo yani waxa ka wada jikinka hilibka jikinka ama digaaga iyo malaayga iyo waxyaabahaas waa qaybta freezing-ka asxaabta qaaliga ah sidaad aragtaanba hadda waxaan soo koray qaybta kore inaba caadi ma sha Allah waa ku inda daraandareysa qaybta kale way ka sii weyn tahay sidaad aragtaan meeshan waxaa safan laptopyo cusub ma sha Allah oo aad u qurux badan sidoo kale waxa inta yaalo desktopyo dhinaca midig waxaan naga qabanaa decoration-ki wow amazing caadi ma sha Allah tabarakallah saad aragtaanba meeshan waxa yaal alaab inda daraandar ah inaba caadi ahayn oo aad u qurux badan oo loogu talagalay decoration-ka guriyaha ama lagu qurxisto sida flowerada saacadaha waxyaabahaas weelasha loogu talagalay miisaska in la saarto miisaska fadhiga iyo qadada waxyaabahaas qaybtan kala u gudbeena desktopya dhankan yaalaan dhankan print yaalo dhankan waxa yaalo qalabka elektrooniga sida feerada waxyaabaha loo isticmaalo makiinadaha wax lagu dubto wax lagu shiito dhinaca boorsooyinka waxa yaalo laptopyada waaw alaabtan deeqdi makiinad leela marwaa micna inaba caadi ma aha ku dhahay ma sha Allah tabarakallah meeshan daraandar waa inda daraandar intana makiinadii aad taqaaniin caadiga ah kuwa huufarada oo lagu nadiifiyo ruumiyaasha ama qolalka hore u sii soconeena sidoo kale qaybtan waxa waa qaybta fridge-da ama freezer-da ama talaajooyinka saad u taqaanaanbo iyagoo jiif ah iyo iyagoo joog ah xitaa waxa ka helaysaa air condition ama mukeef saad u taqaaniin kale inta waxa TV-yadii oo screen-ka ahaa iyagoo aad u waaweyn ilaa konton hadayba kasii badneen 60 xitaa inay dhan yihiin oo maleena cabirkooda aad u waaweyn yihiin qaybtan waxa qaybta qasaaladaha ama mashiinada lagu dhaqdo dharka iyagoo automatic ah iyagoo caadi ah labadaba isugu jiraan dhinaca marka soo aadid waxa ka qabanayso maacuuntii oo kala duwan ilaa dhinacaas oo dhan waxa waay alaabta maacuunta sidoo kale boorsooyinkii hadaa safri rabtid hadaa guri hagaajis rabtid micnaha wax ka maqan ma laha suuq xayaad market saa hore u taqaaneen kan uu ka sii weyn yahay uu ka sii yani balaaran yahay uu ka sii qalab badan yahay inaba caadi ma aha dharka qaybo badan ay leedahay hal waa ogal hadaa dhacaa dhan ka dhaxbaxay weyninkeeda darteed koo law saddex dhinacaas dhinaci ka wixii waa inta waxa waa shaatiyaashi inta surweeladii
inaba caadi ma wallahi aad ay u weyntaa maasha Allah ani waxaa ku dhahay waxaan dhamma iga dambeeyay Muqdisho kastiris ama qanaala nanaal dhisabo ajaa'ib waxaa usii gudbeynaa dhankan oo dharka caruurta iyo dharka dumarka qaybtan kaliya waa qaybta ragga hadda ka soo dhaxbaxnay qaybtan oo kale hadda waxaa qaybta boorsooyinka hambaagyada yaryarka ee loogu talagalay iskuulada iyo laptopyada jaamacadaha in la aado siiba dumarka gaar ahaan dumarka kale hadda waxaa qaybta boorsooyinka hambaagyada yaryarka ee loogu talagalay iskuulada iyo laptopyada jaamacadaha in la aado siiba dumarka gaar ahaan dumarka dharka dumarka hadeertaan ag maraya qaybtan qaybta dumarka waaye qaybtan u gudbeena wili waxaa qaybtan qaybtii oo dharka dumarka ilaa dhinacaan oo dhan dharka jiifka dumarka waaye gaar ahaan qaybta dharka jiifka ee loogu talagalay haweenka ama dumarka qaybtan waxaa qaybta goonooyinka ama saakooyinka iyo toobabkii oo kala duwan goonooyinkii inaba caadi ma wax ka dhiman ma laha beerate wili waa sii soconaynaa qaybaha kala sii fiirinaynaa halkan qayb kaliya waxaa loo xiray ama loogu talagalay qaybta dharka caruurta baby show waa ku qoran saad aragtaanba gudaha ogaleena maasha Allah inaba caadi ma yani qayb khaas ah leeyihiin caruurta hadii ahaan leh sariiraha yarka ee loogu qaado banaanka meelaha la dhaxgaliyo yani sinsiyeeriga la dhaxgaliyo caruurta kala dhinaca yaalo shukumaanadoodii dharkii oo isugu jira wiilal iyo gabdho baawurtii lagu jiifinayo caruurta ama lagu kaxeenayo markaa rabtid inaad magaalada la aadid ilmaha ama guriga ku dhex isticmaashid oo ku ruxruxdid sidoo kale dharkii caruurta ilaa 10 jir meelahaas ama leena dharkiina yihiin ayagoo beebiyaal yar ilmaha bilooyin umul ilaa sanad wiilal iyo gabdho waa caadi ma wallahi ma sha Allah dhar materialkooda aad u fiican oo aad u macaan waaye qalabkii caruurta oo dhameystiran oo jeedaan samaha meeshan waxaa yaalo baawurtii oo maxaa la dhihi jiray inaba caadi ahayn oo wiifo camal u noqonayo ilmaha kii caadiga loogu wadanayo banaanka loogu kaxisanayo wili dharkii socda u jeedin dhar qurux badan ma sha Allah caadi ma aha يعني إن الدراندر لواي در كان all of them made in Turkey وايا جاينا وركيس مجرو made in Turkey وايا sababtoo ah waxa ka dareemaysaa quruxda iyo quality-ga sariirihi caruurta ilaa qayb kale oo ilaa dhinacaas caruurta lemiya oh my god waa iga waasheen xayaat market caadi iga waasheen tookadan hadda waxaan kala garan lahaa inaa Turkey joogo oo mool Turkey ku yaal dhex wareego ina xayaat market oo Muqdisho Soomaaliya ku yaal dhex wareego wallahi xayisiin miga laakiin qaabku u diyaarsan yahay inaba caadi ma aha sariirihi caruurta u jeedaan ilaa inta soo agmarona ayagoo yar yar oo ilmaha umusha ilaa bilooyinka loogu talagalay ayagoo ilmaha waaweyn qalabkii baawurtii wili socdaan oo ayagoo kala duwan wiifooyaasha ilmaha lagu ruxruxo baawurtii markay ilmaha bilooyin gaaraan kuraasta cuntada ku cunaan ciyaalka bushkuleetiyaasha ee wataan bombalayaasha ciyaalka yararka sidoo kale waxaa maleynaa beeshinada qubeyska loogu talagalay waa caruurta qalabkii lagu xambaarayo caruurta hada qaybtaana caruurta iskale tuunjiyaasha yararka caruurta oo aad loo qurxiyay oo umaleysid qaab baawur camal u samaysan dharkii oo wiilal iyo gabdho isugu jira ilmaha rooroon 5 sano ilaa 6 sano meelahaas ilaa hadda qaybta caruurta la wareegoyaa qalabka ilmaha ay ku ciyaaraan oo dhameystiran haddana soo raqiis u yahay kaadana $3 bis meeshan ku qoran ma sha Allah tabarakallah caadi ma oo jeedino qaybtan afaar meeshan waxaa yaal maroodi oo ilmaha ku ciyaara loogu talagalay inaba caadi ma maroodiga ama qaataa manaal ama ogeeya manaal wallahi caadi ma aha labadan waxaa ku labeenaya ka gabadheed u qaadi lahaa aada u jecleystay manaal ina kan u qaado iyo ina maroodiga u qaado kee u qaada ayaan leh wallahi maroodiga ma shidan nuuna camal hadeerta inay ka dhigato maroodiga ma qaadi kartaas dhaayana oo culus yahay
أنا جاو ميل ilmaha da soo dhaxgalo waxa way ilmihiga soo xasuusanaa soo manaala waxa u soo qaaday mid kan yarka ah waxa dama maroodiga aad u qurux badnaa ina u soo qaado hadana waxa is dhahay maroodiga u qaadan sababta waxay jeceshay inay saa inta u qabsato ku ciyaarto nuuna camal ee dhahdo soo waxa is dhahay maroodiga uu culus yahay ma qaadi karto iyadana way yar tahay marka mid kan yarka u soo qaaday ujeedin mootooyinkii baabuurta caruurta qaybta caruurta hadda waa kasii dhaxbixeenaa qaybaha kale u gudbeenaa asxaabtayda qaaliga ah hada markaa ka soo baxnay qaybta dharka caruurta waxa u soo gudubnay oo imaanay xafiiska adeeg.com oo loogu talagalay inay dadku uga adeegtaan ama macaamiisha suuqan ku xiran ama moolkaba qaab online ah application ay leeyihiin application kooda soo degsanaysa adeeg.com marka la soo degtid waxa ka dalbanaysaa wax allaala waxa u baahan tahay oo suuqa uga baahan tahay oo qalab ah ama adeeg ah ama khudaar ah anitin oo yaani suuqan xayaad mool ama xayaad market dhaxyaalo ka soo dalban kartaa qaab online ah gurigaaga lagu keenaa jawi degan adoo bixin hada mashquul tahay oo hooyo mashquulsan tahay ama ku dhibays ina banaanka soo aadido adeeg soo doonatid qaab online ah si tartiib uga adeego iswareerin adeeg.com xayaad daawadayaal sida haday hoos ku soo aragnay marka soo soconay in shirkado waaweyn laga dhaxelay xayaad mool haddana waxa cajiib ila noqotay inaa ka dhaxeleyseen Somali Sudanese Specialist Hospital qaybtiisa ilkaha ani wallahi marka kor soo koray fileenin isbitaal kor uu tagaysa waxa ogaa bas shirkado waaweyn ay kamid yihiin hormood iyo bangiyada ay soo aragteen hoos ku soo marteen kulli aadiin soo sheegay laakiin hada surprise ila noqotay inaba caadi ma xayaad mool waxay naga bareejisay suuqyada caalamka ama moolasha caalamka wax walba u dhameystiran shirkadaha ay ahaan leedahay bangi ahaan leedahay isbitaal ahaan leedahay anitin qofka bini'aadamka u baahan yahay farmashi ahaan leedahay markale waxa idin leeyahay ku soo dhawaada xayaad mool anna waa uga hambaleenaya ganacsatada Soomaaliyeed ee furatay ama fikirkan bal imaatay waxa idin leeyahay guuleysta mar walba